madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayna weheliyaan wasiirada arrimaha gudaha madaxtooyada biyaha caafimaadka iyo warfaafinta taliyayaasha ciidamada militariga booliska iyo asluubta oo ku guda jira safarkii madaxweynaha ee ugu dambeeyay muddaxileedkiisa kaas oo ku mareeyay gobolada dalka Soomaaliland ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay deegaanada Dar es Salaam iyo Goori Adha Cadde iyo Canjiid iyo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaana madaxweynuhu u mahad celiyay dhammaan shacabkii ku soo dhaweeyay deegaanadaasi isagoona xariga ka jaray mashaariic xukuumaddiisu ka hirgelisay gudaha magaalada Laascaanood ayna ka mid yihiin dhismayaasha cisbitaalka weyn ee magaalada Laascaanood iyo boardinka dugsiga sare ee Laascaanood sidoo kalena waxa uu madaxweynuhu dhagax dhigay ceelbiyood uu yeelanayo cisbitaalka weyn ee magaalada Laascaanood كلاتكي وديش الدنيا هبرية جوري هذه أدبر لكم هذا قناة سيرة في على القيمة نوصل لويسين فالحين وين بينوت هنا هالك نبعدنا وحركوش الناس سفرة وخضار ونقرر الدرك يجدد خيجا أنا يجنا ورسنا إنه إن شاء الله تعالى وخير بالدين الجينية. يا أدبر نحونا وصل ويننا ما أنت وأمالك هدي الله ودلك هدي الله جيابه قبل كان قدام بيسوي صوب وأخذه تدوسنا وقرن كانوا قامين qiimo iyo sharaf iyo karaam uu kaga tagay munaasabad ballaaran oo madaxweynaha loogu qabtay hoolka college-ka caafimaadka ee magaalada Laascaanood ayaa ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xukuumadda Soomaaliland waxayna ka warbixiyeen waxqabadkii madaxweynuhu ka qabtay gobolka muddadii 7 sano ahayd ee uu xilka hayay muddadii 7 sano ahayd ee xukuumaddu gacanta ku haysay xukuumadda ee uu hogaaminayay Axmed Maxamuud Silaanyo waxa loo qabsoomay waxa bilowday istaaka dhexe Laascaanood haddaan ku hormaro 17 bilyan oo cusub oo hadda aad arkayseen oo istaal ku dhex yaala 7 xarumood oo istaalka ku dhex yaala oo iyaguna ah rehabilitation lagu sameeyay 7 dhisme oo ah xarumaha caafimaadka hooyada iyo dhallaanka oo target u ahaa xukuumadda inay target garayso meelaha lagu jilicsan yahay sida hooyada iyo dhallaanka ee meelaha ka ku yaala maanta waxa farxad weyn in halka uu nala fadhiyo madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud oo safar lagu soo gaaray madaxweyne waxaan ku leenahay ku dhawow degmada Laascaanood waa nabadgelyo waa barwaaqo madaxweyne sida la sheegay sida laga dhawaajiyay isbitaalka waxa la dhisay 1946 maanta aynu ku jirnaa 2017 muddada inta u dhaxaysay waxaa tamasiilku ugu horeeyay ee nasiib u yeesho inuu isbitaalka dib u habeyn iyo dhismayaal cusub ku furo waana abaal aad gashatay shacabweynaha reer Soomaaliland gaar ahaan shacabka reer Sool sida madaxweyne loo sheegay isbitaalkanu wuxuu ahaa isbitaalka kaliya muddo dheer ka jiray dalka magaalada tan intii bariga aan sheegay anigu dhakhtar wanaagsan buu ahaan jiray oo dadka lagu qali jiray oo wax badan qaban jiray laakiin 60kii markii la soo gaaray aan waqtigan ka hadlayaa waqti 60kii ka horeeyay markaan sheegaya 60kii markii la soo gaaray ilaa iminka dawladdan ka hor uu baabay waxna ma ahayn runtii ma jirin dhowr dhakhtar oo yimidna lafahooda uga carareen oo meelo kale ayay isaga shaqo tageen alxamdulillah rabbil caalamiin mashruucan qayb weyn iyo wax weyn buu ku soo kordhinayaa gobolka kan iyo dadkiisa waxa maanta sharaf weyn oo ah inaan ka soo qayb galno goobjoog ka ahaano furitaankii xarika jaristii cusbitaalka guud ee magaalada Laascaanood oo ah cusbitaal gobol iyo iskuulkii boardinka dugsiga sare waa laba mashruuc oo waaweyn oo lacag badan ku baxday barnaamijka la yiraahdo SDF ama Somaliland Development Fund ama sanduuqa horumarinta Somaliland baa hirgeliyay garaajamac garaad Ismaaciil Ducaale iyo Caaqil Sanyare oo iyaguna madasha ka hadlay ayaa madaxweynaha ku soo dhaweeyay gobolka Sool waxa maanta hadda gobolka Sool magaala madaxdiisa Laascaanood sharaf noo ah inuu nagala soo qayb galo furitaanka waxqabadka horumarkii muddadii ay jirtay ay ka qabatay xukuumadda uu hogaaminayo Axmed Maxamuud Maxamed Silaanyo Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa cadceed soo baxday sacab laguma qarin karo lamana tirin karo ma jirto xukuumad ka horeysay oo wax ka qabatay gobolka Sool ugu horeyn waxaan halkan ku soo dhaweynayaa uga mahad celinayaa waxqabadkiisa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo
iyo wafdiga ballaaran ee golaha wasiirada ay hogaaminayo. ugu dambeyntiina madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa halkaasi ka soo jeediyay sharaf weyn bay tahay inaan maanta halka ka imaado aan ka soo qayb galo xafladda tan aanu ku fulanay Laascaanood Regional Hospital iyo Laascaanood Secondary Boarding School. mashaariic waaweyn inay dalka ka hirgalaan waa waajib aan laga hirgeliyo waa waajib saaran waxaanu ka qaban karnaa waanu ka qabanay intaa ka bacdina waxaan ku tari karnaa daba waanu ku tari doonaa. Samiir Saciid Bila Bulsha TV Laascaanood.